السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لدي أصحابتي أحبابتي خالقة دمانتي وإن السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله وحده إلهي بواقع إنو بريسيي سوى عن أو نكسنا إنو بريسيي ملكي حمد دمانتنا ربي أي أسكال سبحانه وتعالى walaalkayga khaaliga ah waxaan jeclaysay inaan ku xasuusiyo xadiis maskaxdayda iminka ku soo dhacay xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa 'indahu quta yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya wa hazafiriha ninki idin kamida oo waaga uu u bariyo asoo amaan u qaba naftiisa oo aanan ka cabsi qabin in wax la yeeleeyo dhibaatooyin ayna ku furnayn iyo shidooyin markaas soo hujuumayo naftiisa qatar gelinaya mu'aafan fi jasadihi jirkiisana uu caafimaad u qabo indhihiisa iyo dhagihiisa iyo qalbigiisa iyo arwaxiisa ay isku taalo oo aanan markaa ahayn nin sariir saaran oo bukan aan ahayn nin jirkiisu kala go'an yahay mashaakilaadii dhaawacyo ku oolin wa cindahu qawta yawmi maalinka wuxuu cuni lahaana meel ku og oo rabbi subxaanahu wa ta'ala u yasiray adduunyada oo dhan baa loo soo kulmiyay buleeyay salawaatullaahi wa salaamu calayhi iyo wax allaale wixii ku jirayba walaalkayow haddii waaga uu ku baryo saddexda arrimood adigoo ku sugan waxaan jeclahay inaan naftayda iyo naftaada xasuusiyo wixii intaa ka sii ziyaado ah waa ziyaado aan u baahnayn mashaakilaad fara badan in loo maro diinta ilaahay looga fogaado iimaankaagii loo layaco ummadda wax loo dhibaateeyo Allah hadduu subxaanahu wa ta'ala waaga ku barisiiyay adigoo ku sifooway saddexdan calaamadood oo xadiidku sheegayo walaalkayow qul alhamdulillahi rabbil aalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku shukri walaalkayow ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku mahadi walaalkayow haddii xadiidkani ama kaliibkani uu ku soo gaaray adigoo dhagahaagu ay bad qabaan oo aad maqli karta kaliibkayga indhahaagu ay bad qabaan oo aad arki karta kaliibkayga qalbigaagu uu bad qabo aad fahmi karaysa qowlka aan ku hadlayo walaalkayow Allah aan kugu dhaashiyo asxaabtaada kale iyo walaaladaada kale xasuusi ni'amka Allah subxaanahu wa ta'ala uu siiyay walaalada xasuusi san ku soo xasuusiyay ni'amka Allah subxaanahu wa ta'ala uu siiyay si ajirkayaniga adiga aan isaga mid u noqono walaalkayow waxaad ogaataa silcada ama badeecada markii la qasaaro gadaayo ama lafaheeda la gadaayo ama faa'iido badan laga raadiyo isku juhdi looma maro isku dadaal looma maro wax allaala wixii ka baxsan saddexdan sifood haddii ay tahay adduunyo aad raadinayso rabbi waa ku siinaya waana ku sahlaya laakiin yayna kula dhaafin xadadkii rabbi kuugu talagalay subxaanahu wa ta'ala إما إن الدين تأذكر يعض صلاةها يكون دافته إما إن ذكر إلهي كل يعض إما إن ولا لا ذاك أصحاب تأذكر جاء في سؤالي وشاهدين يزيادة أنت كبحث ولا الكيو الله إن شاء الله تعالى كعد سنة أني أدق إنه نقديه دواء سنة بدأ وبريو جرك وضع عافمات خبا الله سبحانه وتعالى إرزاق وضع أمين أسار مانيكا نفط وضع آمن وخبا الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أيان كرجينيا ولا الكيو حدامك حسوسيي نعمك الله إساك واقو وكو بريي ولا لذاك لها كلب خيل إنا حسوسيس إن شاء الرحمن أحبكم في الله ألا درتي أيان كو جعلها ألا درتي أيان كو حسوسينا يا إن شاء الرحمن وحان كارجينا يسان كو حسوسي إن هذا ولا لذاك لا حسوسيس حديثك أنكو عليو من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده أو في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وحذافيرها نينك إذن كميدو واغ وبريو أسوى نفتي سآمن أخبا جركي سأبد بعد خبا راشينك إيوحو مانكا كن ولا لها يمل أسارنتهي الدنيا ذا أيضا أي الله سكل من ولاي صلوات الله والسلام عليه وحل على وحي كل حجريبا ولالك يوم نعم إلهي سبحانه وتعالى كسيه قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونعوذ بالله من حال أهل النار الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله نعموين كيسا كتام لذلك صالحين تأه وحانا رب كما قلينا من حال أهل النار ذلك أهل النار كأحواشوذا الله سبحانه وتعالى كما قلينا ولالك يوم إن شاء الله تعالى انشر هذا كليب كان إن شاء الله تعالى أصحاب هذا الأولاد إن شاء الرحمن إلهي وحنك رجينا إنه كويالو في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى
aad iyo aad ayaan idin jeclahay walaaladay wiilal iyo gabdho asxaabtayda wiilal iyo gabdho aad baan idin jeclahay allah yaxfadakum ويحبكم ولقاء أخرى إن شاء الله تعالى دمتم في حفظ الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته